sheekadan waxay gaar u tahay raadiyo hirsamo kulan wacan dhegeystayaal waa qaybtii 22aad ee sheekadii la mid ah iyo lur jacayl dhegeysi wacan. waa tahay qaybtanna waxay noogu bilaaban doontaa ee sheekada hubintii baari iyo hadal tusintii bilan. bilan oo dareensan in baarin cadde arrintan la dhakafaarsan yahay ayay ugu jawaabtay, haa baariyo waxba lama filaanayay kugu noqon, barnina qof aan adiga ahayn dooqeedu maahan, marka ayadaaba kula soo xidhiidhi doonta ee isku sug. baari hadalkaa bilan ay leedahay wuxuuba u qaatay mala awaal, maadaama horay uu kaga bartay hadalla ay kaga sheekayn jirta oo markaas kaftan ahaa. haddana wuxuu is yidhi bilan kaftankeeda weeye, waxba qalbiga yaan iska raacin. markaasuu xujo kaga dhigay inay ka ogolaato inuu hooygooda u raaco, balse xilligaa waxay ahayd waqti salaadii maqrib soo dhowdahay. bilanna way ka ogolaatay, waxaanay isku soo raaceen gurigoodii. markii baari iyo bilan wada tageen gurigoodii ayay weysaqaad u soo shubtay gabadhii bilan ahayd wiilka baari. kadibna wuxuu ku soo tukaday masjid aan sidaa kaga fogeyn aqalka bilan. soo laabashadiisii baari wuxuu filayay in barni ay aqalka ku sugan tahay, ha yeeshee bilan ayaa gudaha u soo gelisay. isla durbaba wuxuu indhaha ku dhiftay hooyo haweeye oo ah bilan iyo barni hooyadood. dabadeed salaan iyo isbarasho haweeye iyo baari ah kadib, baari ayaa hadalka bilaabay asagoo xaqiiqsanaya in barni safarka lagu sheegaya sax yahay iyo in kale. ayuu yidhi, haye maamo, barni umaba jeedee aaway, waxaan ahayn saaxiibo iskala kaashan jiray duruusta naloo soo diro, marka maalmahan ma arag, waxaan is yidhi soo arag bal barni waxa ku dhacay. haweeye ayaa ugu warceligisay, wiilkaygiiow sidaan filayo bilan soo kuuma sheegin. haa maamo, bilan waxbay ii sheegtay, balse qoftan waan ka runsa waayo waxay i leedahay. haweeye way u xaqiijisay safarka gabadheeda barni. baari oo markan soo xaqiiqsaday ayuu qoyskii macsalaameeyey. markuu soo baxay kadib ayaa bilan ka soo daba baxday oo tiri, hay duqa, markan waad qanacsan tahan fila. baari oo qosol yar dhag ka siiyey ayuu ugu hadalgaabiyey, in badan walaal. waanuu ka soo dhaqaaqay. markuu gurigiisii islamarkaana qolkiisii uu dul tegey asagoo xilligaa isu diyaarinaya salaadii cishaha ayaa waxaa hal mar soo dhawaaqay taleefankiisii. markuu si uu eegay taleefankii nambarka waxaa u soo baxay nambar dibadeed. waa hagaag qaybta 22aad ee sheekada halkan ayaan ku idleynaynaa. waana sheekadii la mid ah iyo lur jacayl. fikirka sheekadan waxaa iska leh al abwaan isma sitowsi. dhegeysi wacan noqo sheekadani qof ka sheekeeya, balse ha noqon sheekadan qof looga sheekeeya. markaad wehelsiisay naftayda wareertay mabnihii ku tabaayay korkaa tidhi waykan walaacii haystay daqiiqad ku waayay wabnihii ku tabaayay korkaa
sheekadan waxay gaar u tahay raadiyo hirsamo sheekadani waxay gaar u tahay raadiyo